xanuunka macaanka ama sonkorta diabetiska la yiraahdo maxaa keenay sababa maxaa lagu daweyn karaya su'aal kale oo muhiim ah waxa weeyaan si dabiici ah qofku ma isaga daweyn karaa daraasado fara badan oo la sameeyay waxay yiraahdeen faahfaahinta arrinkaasna videogan ayaan insha Allah idinku la wadaagaya soo cid kasta arrinkan uu khuseeya taa awgeed fadlan nala sii daawada videogan oo dhamaysta. Welcome back. Welcome to Asiya's TV show dhammaan. Xanuunka macaanka oo hadalhayntiisu aad u fara badatay. Su'aalaha laga soo gudbiyo aad u fara bateen. Inkastoo channelkayga waxaanu kaga hadalnaa mowduuc kasta waynu discuss garaynaa. Wixii macluumaad qof kasta haya miisku wuu inoo wada furan yahay waa la soo saari karayaa. Su'aalo fara badan aad soo gudbiseen bay ka mid ahayd macaanka waxyaabo ku saabsan gaar ahaan dadku may soo gudbineen su'aalo oranaya macaanku maxaa laga qaada maxaa lagu daweyn karaya dadku waxay soo gudbinayeen cabashooyin oranaya maqaarkii baa iga xumaaday caafimaadkaygii baa hoos u dhacay macaan baan qaba waxyaabo noocaasa okay laakiin cidi eegi mayso macaankii ciladii waxaan kaloo dhan keenaysay halkee dawo looga heli karaya okay sidaynu wada ognahay kulligeen dadka markuu macaanku ku dhaco macaanku waa type 1 iyo type 2 laba nooc buu kala yahay videogan kaga hadlamayno video kale insha Allah aynu kaga hadlayna labada nooc waxay kala yihiin insha Allah si guud baynu macluumaad yar oo basiita oo cid kasta fahmi karto oo aan soo jilciye ayaan idin la wadaagaya insha Allah daraasado fara badan ayaa lagu sameeyaa macaanka adduunka hadda meel kasta inkastoo uu yahay xanuun weligiiba jiray hase yeeshee sii farabatay sanadihii u dambeeyay yani the last 20 years 30 years xadaaf buu noqday daraasado aad loo sameeyo dadka yani dhakhtarada aaminsan dawooyinka iyo dhakhtarada aaminsan dabiici in wax kasta lagu daweeyo daraasado fara badan baa la sameeyay waana daraasado cid kasta heli karto so macluumaadkan aan idin la wadaagayo insha Allah maanta waa macluumaad meel kasta laga heli karayo maaha anigu waxaan idinku leeyahay oo aan jeebkayga ka soo saaray waxa weeye waa faa'iidooyinkii ka soo baxay daraasado fara badan kuwii aan anigu is-iri kuwaas ugu fiican dadkana anfacaya ka faa'iideysan karayaan oo ah sidee dabiici wadada dabiiciga loo mari karayo in macaanka wax laga qabto maxay tahay كوزانو وان كسو ورجيدا مركزتا دو لغو دegdego okay so waataataynu insha Allah maanta ka faaloonayno okay su'aasha horeysa waxa weeyaan muxuu yahay macaanku xanuunka macaanka ahi muxuu yahay waxa weeyaan dhiigii oo macaankii sonkorti ku soo noqonayso okay oo dhiigaagii ay raacayso yar iyo weynba waa la qaadaa yani caruurta iyo dadka waaweynba way qaadaan okay gaar ahaan dadku waxay sii qaadaan dadka waaweyn waxay sii qaadaan xilliyada 40 iyo 50 markay dhaafaan ayuu xanuunadaasi dadka qaar badan ku soo baxaan inkastoo xanuunkaasi cid kasta ku soo bixi karo iyo da kasta oo aanu kala lahayn da oo sababta ugu weyn ee keentaana ay tahay jirkii oo cuntooyinka sonkorta noqonaya marka la cuno ama sonkorta ha noqoto sideedaba iyo wixii sonkorta laga sameeyay macmacaana iyo waxa laali waxay sonkor ku jirto iyo cuntooyinka sonkor isu bedela marka la cuno sida carbohydrateska roodhida cad daqiiqda cad wixii alaali wixii daqiiq cad ka samaysan bariiska baastada baradhada waxaas oo dhan macaan bay noqdaan fruitska qaar kamida macaan bay noqdaan sonkor inkastoo ay faa'iido badan iyo vitamins fara badan ku jiraan sida muuska oo kale sonkorta wuu kicinaya xabxabka oo kale waxaasoo dhan macaanka way kiciyaan because iyakii baa isu bedelaya macaan markuu jirkii qaato so ta ugu muhiimsan ee la rabo in la fahmo waxa weeyaan daraasado fara badan iminka waxay yiraahdeen macaankii xanuun kumaba tirsanaa inuu yahay yani awal waxa la oran jiray waa xanuun iminka because saad ogtihiin sanadba sanadka ka dambeeya دراسته هرمر بالسي سمايا علم عصب بالجارة فائدوين عصب كصوبحة
waddo cusub baa loo hela oo loo maro xanuuno berigii hore siyaabo adag lagu daweyn jiray marka cilmiga iyo aqoon kororsigu waxunbay sii fududeeyaan okay so imika waxaaba gaar ahaan dhakhtarada dabiiciga wax ku daweeya waxay ku leeyihiin macaanku maba aha xanuunba ma ku tirsanaa ee wuxuu noqday wax sababtiisu tahay in jirkiiyo khalkhalay miisaankii ilaahay ugu talagalay jirkoo khalkhalay okay oo la rabo markaa dawadiisuna maxay noqonaysaa khalkhalka in meeshii laga saaro balancekii miisaankii lasoo celiyo si dhiiggii sonkortii uga baxdo oo balancekii halkiisii usoo fadhiisto okay hadalkaas si jilicsan ayaan usoo sharaxaya insha allah imika oo cid kasta fahmi karto waayahay sonkor markuu qofku cuno ama wax alaale waxay sonkori ku jirto markaynu soo koobayna hadalka iyo wax alaale waxay cunooyin macaan isu bedela jirku muxuu sameeyaa okay jirku wuxuu sameeyaa because waa inaad fahamto jirkaagu siduu u shaqaynayo markaad fahamto siduu u shaqaynayo waxaad fahmaysaa ilaahay inuu sidaa ugu talagalay markaa jirkii warshad weeyaan waa mashiinkii haddaad si khaldan u isticmaasho of course khalkhal buu keenaya ama mashiinkii haddaad geliso wax ka awood badan khalkhal buu keenaya okay marka mashiinka ilaahay miisaanku ugu talagalay waanaad ku wado oo ah maxay markii hore qofku markuu caafimaad qabay aanu sonkor qabin siduu jirku u shaqaynayay qofku wuxuu doono cunayay waxa laale wuxuu doono markuu cuno jirkeenani subxaanallahi alcadiim maskaxdii ayaa fariin diraysa markiiba jirkii markay tabto inuu wax macaan cunay fariin bay u diraysa pancreaska waxa la Soomaaliya ma ku garanayo talo ma xameetida ma garanayo soo saxa pancreaska ayuu u diray maskaxdii fariin u diraysa oranaysa jirkii sonkor macaan baa soo galay pancreaso insulinkii soo daa okay pancreaska muxuu sameeyaa insulinkii buu sii deynaya insulinka maxaad sameynaysaa shaqadaadu maxay tahay wuxuu qaadaya macaankii intuu qaado xaguu geynaya wuxuu geynayaa meeshii ilaahay ugu talagalay oo ah cells khalaaya u gaara waxa la bari dhoweyd in la yiraahdo cellska unugyo u gaara jiro sonkorta qaada oo jirka soo dhaafinaya oo miisaankii ilaahay si aan xanuun macaan isu bedelin okay insulinti way soo qaadaysa macaankii waxay u geynaysaa unugyadii albaabkay ku garaacaysa unugyo iga fura macaan baa sidaa unugyadii fariintii bay fahmayaan maskaxdu soo dirta way furayaan albaabka insulintii halkii bay gelinaysa macaankii unugyadiina wadadii ilaahay ugu talagalay inay ka baxo macaankaasi oo aan jirka dib ugu soo noqon ayay ka saaraysa waad fahamteen saasuu u shaqeeya jirku markuu caafimaad yahay marka xanuunka macaanku yimaado halkee wax ka xumaadeen miisaankan imika idiin sheegay halkuu ka khalkhalay okay markuu qofku cuno macaan iyo carbs bilaa xisaaba iyo xanuunka macaanka jirka waxa ku farabadin karo kale markuu xilli kasta qofku wax iska cunayo dadka macaanka qaba waxay dhahaan gaajadan ugu badan xilli kasta wax bay cunayaan qofka caafimaadka qaba xitaa lama rabo inuu markuu gaajoodo wax soo cuno snacking ma taqaanin snacking waa iska nusu saace markasta wax yar fudud iska cun quraac qado casho wax fara badan u dhaxdhaxay si waan yara gaajoodo chocolate yar cun xabad ice cream cun cake yar cun wax lagu sugsugo maaragtay cuntooyin labada cuntooyinka waaweyn wax dhexdooda waxaas oo dhani jirka waxay ku fara badanayaan insulin markuu jirka wax cunaba insulin baa meeshii soo baxayso oran soo hawl baa ku taala okay so taa marka sanado fara badan jirkii lagu wado khalkhal weyn baa imanaya okay khalkhalku halkuu ka imanaya haddaba khalkhalku wuxuu ka imanaya markaad hawshii mashiinadan shaqaynaya unugyadii waa mashiino gaara insulinti waa mashiin gaara dhiiggi waa mashiin gaara maskaxdii iyadu waa mashiin gaara meel kasta waa mashiin okay laakiin waxaynu ka hadlaynaa inaku mashiinada wada shaqeeya markay noqoto jirka macaanka in lasoo dhaafiyo kuwee khalkhala okay marka jirkii markasta macaanka dhergiso iyagu bilaa xisaab wax u siiso insulinti maxay samaynaysaa hadhowto waa tan haddana macaankii bay soo qaadi unugyadii bay u tegi insulintu iyadii garaaca waxaan uga jeedaa yani insulintu waa furaha albaabka furaya unugyada
macaanku ka baxayaan ama gelayaan oo dee ku dhaafinaya insulintu shaqadeedu waa taa okay insulinti maalintii dambe waa tan oo markuu jirku soo kharabayo macaankii bay sidaa albaabkii bay isleedahay fur albaabkii furmi maayo garaac furihii shaqayn maayo albaabkii wuu adkaaday albaabkii isfuri maayo waa unugyadii okay way yaaban tahay insulintii macaankii shaqayn maayo halkiisii ka bixi maayo fariin bay haddana maskaxdii soo diraysaa pancreaskii bay u diraysaa insulin fara badan baa loo baahan insulin soo daa intii horaa wax qaadi kari weyday pancreaskina waa kanoo insulin buu soo daynaya albaabkiina waa kanoo waa furmi la'yahay unugyadii maxay la furmi la'yihiin albaabkoodii waa unugyadii macaanku ka baxayay macaan bay ka dhergeen khatiyaan billaahi ayay taagan yihiin ma qaadi karayaan wax kale okay marka maxaa dhacaya waa marka macaankii uu meel ka baxo markuu waayo dhiigii uu ku soo harayo ee marka qofkii dhiig laga qaado la oranayo macaan baad qabtaa marka meel ka baxo waayo macaankii waa kan calaqanay jirkii dhiigii la socday uuna ku meeraalaysanaya jirkii albaabkii uu ka bixi jiraa laga xidhay waayahay waa markay dhakhtaradu yidhahdaan qofkii macaan baad qabtay kiniin u qoraan ama ka 500 ama ka 850 okay anigu aad ayaan u diraasadeeya macaanka because ninkayga qaba so dartii ayaan diraasado fara badan u sameeya oo ku saabsan macaanka siyaabaha dabiiciga loo daweeyo markuu kiniinkii qofkii bilaabo shaqadii kiniinku maxay noqonaysaa warshada markaad fahamtaan shaqaynteedii sidii loo saxi lahaana waad fahmaysaan gacanta idinkaa ku dhigaya dawadiinii qof kasta isaga isu hayo dawadiisa insha Allah waayo dawadii maxay qabanaysaa dhakhtarku ku siiyay kiniinkan la cunayo shaqadiisu kaliya waxa weeyaan inuu insulintii qaadaysa macaanka uu xoojiyo marka insulintii awoodeeda haddii halkan joogtay kiniinka wuxuu siinayaa awood ka sii badan intii hore yani awoodeeda buu badinaya insulintii si ay xoog ugu furto albaabkii macaanku ka baxayay ahaa unugyada albaabkii markii hore furay ku furi jirtay insulintu furihii ma furayo okay marka imika maxay noqonaysaa inay soo xoogaysato soo awoodisto albaabkii laado jabiso oo xoog ku jabiso dawadu intaasay qabanaysaa insulintii bay awood xadhaaf u samaysaa si albaabkan u jiidho jabiso oo macaankii halkaa ka saarto ma ka saartay macaankii waa kan uu soo degay qofka markuu xabadda kiniinka liqo laakiin dawo maaha kiniinkii okay dawo maaha weliba wuxuu wata kiniinkii side effectyo fara badan oo qofka ku soo bixi doona yani kiniinkii insulinta xoojiyo albaabkii hala jabiyo macaankii yaraha laga saaro alright laakiin maaha wado qofku ku noolaado inuu xooggaasun jirku ku shaqeeyo khaladka ah miisaanka ilaahay maaha waad fahamteen baan jeclahay markaa jirku siduu u shaqaynayo ee uu macaankii dib ugu soo celinayo dhiigga ee uu u bixi la'yahay okay filim baan idinka dhiga yar oo la fahmayo because luuqadda adag ee dhakhtarada iyo ku sheegaan ama ku fasiraan waxaa laga yaabaa dad fara badan inaanay fahmayn laakiin sheekadu saasay u fudud tahay macaankii waa caynkaa shaqayntiisa hore videogan taasaan idinku fahamsiinaya insha Allah waa part 1 part 2 xalka iyo dawada iyo khalkhalka jirka ku dhacay ee macaankii wadadii loogu talagalay uu uga bixi waayay maxaa u xala ayuu noqonaya part 2 videogani insha Allah because guys ma jeclidin videoyada dhaadheer intan markay qofkii ka dhaadhacdo uu si fiican u fahmo qaybtii labaadna way u fududaanaysa insha Allah so sheekadoo kooban waa caynka waa cunto xumo jirkii laga buuxiyey waxyaabo sonkor isu bedelayay iyo sonkor iyo familigeeda iyo maadeeradeeda oo dhan jirkii laga buuxiyey wadadii ay sonkortaasi jirku ka saari jiray dabiiciga ahayd oo mudaharaaday oo daaqadaha idinka dallacatay okay furihii lagu furi jiray albaabkii ka baxayso oo aan shaqaynayn dhakhtarkii oo qoraya kiniinun
maaragtay halkii furay lagu furayay albaabka kiniinku muxuu noqonayaa dubbo weyn oo lagu soo siiyo lagu leeyahay albaabka ku jabi furuhii hadduu shaqayn waayey albaabka jabi insuliinku furuu sitay imika insuliinkii furama sitay imika wuxuu sitay dubbo weyn albaabkii waxaan ku iri digadu ka dhigaya siduu khasab ugu saaro kiniinku waa dubbaha okay insha allah siyaabaha dabiiciga ee miisaanka ilaahay dib loogu soo celinayo caadigiisii ee looga maarmayo dawadan side effect-ka fara badan leh kaliyaha xitaa fadhiisisa muddo dheer marka la isticmaalo waxyaabo aanan qiyaasi karayn side effect-yadeedu weeyaan xilliyo dambaynu insha allah ka hadli doonaa macaanka mawduuca macaankana sheekadiisu bilow bay inoo ahaansa hadda insha allah laakiin taxane dheer ayaynu ka dhigaynaa fideoyo fara badan oo kale oo mawduucyo kale ka hadlayaan soo dhexgelin insha allah laakiin aqoon kororsi fara badan insha allah cid kasta faa'iido kala baxayso ayuu noqonaya insha allah ana ducada iisoo badiyaa aadna waan idiin salaamaya like-kana waxaan ku iri dubbaha la dhaca okay smash it aad baan idiin salaamaya see you next video